markale magaalada Muqdisho waxaa ku qulqulaya wufuud ka kala socota 15 dal oo ku bahoobay kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka oo 57 dawladood ay ku jiraan ururkaasi oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano OIC. Kooxdan ayaa berito waxay Muqdisho ku yeelanayaan kulan heer wasiir ah. Shirkan ayay Soomaaliya martigelinaysaa iyada oo la raacayo qaraaradii ka soo baxay shirkii kan ka horeeyay ee 44aad iyo kii 45aad ee lagu kala qabtay magaalooyinka Abidjan ee dalka Ivory Coast iyo magaalada Dhaka ee dalka Bangladesh. Kulankan ayaa diiradda lagu saari doonaa sidii Soomaaliya looga caawin lahaa amniga iyo soo celinta kala dambeynta iyo dhismaha hay'adaha dawladda. Haddaba shirkan iyo ahmiyadda uu u leeyahay Soomaaliya ayuu Nuur Xasan Nuur wax ka weydiiyay Dr. Maxamed Nuur Gacal oo horey u ahaa wasiiru dawlihii arrimaha dibadda Soomaaliya horena ula soo shaqeeyay ururka iskaashiga Islaamka. Berri waxaa ka furmaya shirkii kooxda xiriirka Soomaaliya ee ururka iskaashiga Islaamka dawladaha ku bahoobay. Marka maantana waxaa soo gaaray wufuudii qaybtii ugu horeysay dabcan qaybna berri ay imaan doontaa. marka 14 dawladood ayaa u matalaysa OIC. Waaya marka maxay tahay muhiimadda shirkani? muhiimadda shirkan oo Soomaaliya uu leeyahay waa laba muhiimadood. kooxdan waxaa la abuuray 2007 si ay ula socdaan arrimaha Soomaaliya. waxay ku shiri jireen New York qaramada midoobay shirkeeda markay ay tagaan. laakiin sanadkan dadaal dheer oo dawladda Soomaaliya u gashay kadib waxaa lagu guuleystay inay yimaadaan Muqdisho oo shirkoodii ka dhaco halkaas. marka guusha ugu weyn waxaa weeyaan ururka OIC oo matala 57 dawladood inuu shir ku qabto Soomaaliya. waxay ka baxaysaa go'doomintii hore ay ku jirtay dawladda Soomaaliya. sidoo kalena waxay diyaar u yihiin wixii hadda ka dambeeya dawladahaasi inay xiriirkooda joogteeyaan Soomaaliya iyo ayaga. waxaana ku xigi doona ay furo u noqon doontaa hadday noqon lahayd maalgashi iyo hadday noqon lahayd xiriir diblomaasiba in Soomaaliya ay u furto albaabada dawladahaas xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka. waa garta marka ajendayaasha shirka looga hadli doono haddii aad wax nooga sheegto. ajendayaasha dabcan waxaa haysa wasaaradda arrimaha dibadda. laakiin waxaa ugu weyn howlaha Soomaaliya ay ku jirto gacan in laga siiyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo arrimaha doorashooyinka la filaayo 2020 ee soo socdo iyo dib u dhiska Soomaaliya iyo guud ahaan arrimahan la rabo Soomaaliya hadda inay laga cafiyo deymanka iyo oo dalalka deymanka kule ay ugu horeeyaan dalalkan ku jira ururka iskaashiga Islaamka. waa gartay Dr. Maxamed Nuur Gacal, dalalka Islaamka qaarkood iyaga ayaa maaragtay moodaa inay isku jeedaan, qaar iyaga ayaa isdilaya sida Yemen oo kale oo dhibaato weyn ay hadda ka taagan tahay iyo Suuriya iyo dalal kale. marka inaga oo og intaasi ay jirto waxaa la isweydiin karaa ayaa ah dalalka Islaamka gaar ahaan ururka iskaashiga Islaamka muxuu gacan ah uu hadda sii karaa Soomaaliya? dalalka Islaamka dagaal kama wada jiro. waana dalalka ugu muhiimsan hadda ee Soomaaliya ay gacan ka heli karto. sida aad la socoto ururka iskaashiga Islaamka waxaa hadda madax ka ah dalka Turkiga oo Soomaaliya aad ogtahay inuu gacan weyn ka geystay dib u soo celinteeda iyo dawladnimadeeda iyo bini'aadamnimadaba. sidoo kale xogayaha guud waxa weeyaan Sacuudi Carabiya oo xarunteeda ay tahay Jidda. gacanta ay ku leedahay Sacuudi Carabiya arrimaha Soomaaliya waad la socotaa. wasiirada arrimaha dibadda oo hadda shirkan ka soo qaybgelaya waxaa madax ka ah Bangladesh. sidoo kale waxaa imaan doona oo xubin ka ah Malaysia. wadamadaas oo dhan